dowladda Tansaaniya ayaa wajahaysa eedeymo caalami ah oo la xiriira isirsifayn kooxaha asaliga ah ee degan dalka Tansaaniya gaar ahaan gobolka ku yaala waqooyiga inay tirtirayso qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool dalka Tansaaniya ee ay ku jiraan bulshooyinka Maasayda. kooxaha asaliga ah ee dalka Tansaaniya ayaa la sheegay inay wajahayaan dagaal adag oo ay ku doonayaan inay ku sugnaadaan dhulka xuduudda iyadoo la wiiqayo habka dhaqanka lahaanshaha dhulkii ay lahaayeen taasi oo ka dhigan inay u nuglaadaan in dhulkaasi ay qabsadaan maalgashadayaasha shisheeye ee dawladdu ay taageerto kuwaasi oo raadinaya dana ganacsi oo ballaaran. Tansaaniya oo dhan dadka asaliga ah sida xoolo dhaqatada dadka la yiraahdo Maasayga ee reer guuraaga ah iyo dadyowga la yiraahdo Hadsabe ayaa waxa ay si joogto ah oo la kulmayaan cadaalad darro taariikhi ah iyadoo maalqabeeno awood lana ay qabsanayaan dhulalkii ay asalka u lahaayeen ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay. gurigayga waxaa dab qabadsiiyay laamaha ammaanka gaar ahaan booliiska meel aan ku noolaado ma jirto carruurtayduna waxa ay ku lumeen duurka hadda oon hadlayo ma garanayo meel ay joogaan ayay tiri Jasiya Murani oo degan Ngorongoro oo ah waqooyiga gobolka Arusha. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Tansaaniya ayaa olole arxan daran waxa ay ku sameeyeen gobolada ay dadyowgaasi deegaansadeen oo ay ku doonayaan inay ka saaraan qoomiyadaha gaar ahaan qoomiyadda Maasayda taasi oo markii dambe dhalisay cambaareyn caalami ah. Tansaaniya dhulku waa hanti guud oo madaxweynuhu uu haysto isaga oo wakiil uga ah dadyowga. si kastaba ha ahaatee hanaanka dawladnimada waxaa hareeyay musuq iyo maamul xumo sida ay sheegtay hay'adda Transparency International. waqooyiga Tansaaniya kumanaan xoolo dhaqato Maasay ah ayaa lagu dhibaateeyay kuwaasi oo hab nololeedkoodu uu ku tiirsanaa dhaqashada lo'da waxaana laga saarayaa dhulkii ay deganaayeen muddada dheer ee asalka u lahaayeen. mas'uuliyiintu waxay isku dayayaan inay ilaaliyaan deegaanada duurjoogta ee muhiimka u ah dadka xoolo dhaqatada ah. tan iyo markii ay soo baxeen dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka Maasayda ah ee degan gobolka ku yaala waqooyiga Arusha dawladda ayaa sidoo kale waxa ay kala kulmayeen dhibaatooyin iyo cadaadis ka dhan ah dibadbax ay dadkaasi sameeyeen. 20 qof oo ka mid ah dadka Maasayda ah ee ka soo jeeda waqooyiga Tansaaniya ayaa lagu soo oogay dacwad dil ah oo loo geystay askari booliis ah intii ay socdeen mudaharaadyo ka dhashay qorshaha ay dawladdu ku doonayso in dhulkaasi ay u adeegsato isticmaalka iyo sidoo kale xanaanaynta duurjoogta. dawladdu waxa ay sheegtay in sarkaalkan lagu dilay fallaar toogasho ah 10kii bishii Juun isagoo isku dayay inuu calaamadeeyo dhulka la yiraahdo Lyanlondo oo xuduud la leh seeraha qaranka ee la yiraahdo Serengeti. qareeno ka tirsan isbahaysiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Tansaaniya ayaa sheegay in kooxdan ka mid ah hogaamiyaasha Maasayda ee la xiray 9kii bishii Juun isla markaana loogu yeeray wadahadal ay la yeeshaan gudoomiyaha degmada wadahadalkaasi oo ku saabsanaa tilaabada dawladdu ay dadkan guryahooda uga saarayso. raggan ayaa lagu eedeeyay inay sameynayeen kicin bulsho iyadoo la xiray waxaana loo gudbiyay xabsi ku yaala magaalada Arusha halkaasi oo ay ku xirnaayeen 70,000 oo ka mid ah Maasayda ayaa wajahaya in laga raro dhulka Lyanlondo tan iyo sanadkii 2012 waxaana loogu hanjabay in laga saari doono dhulkaasi balse dhowr mar oo dawladdu ay isku dayday arrintaasi waa ay guul dareysatay.